akoonka waana sababtaan galdhowtaydin lahaa website baan sameynayna marka dad IT da ku wanaagsan khaasatan web developerka iyo wixii kale contribution lagu darayo in dhalinyaradu ay odayaasha ka caawiso taasoo ah marka dhammaan dalalka beesha joogto oo dhan mashruuca horumarinta reerka wadooyinka abaaraha waxbarashada ceelasha wixii ay ku darsan karaan ee guddida ay u hogaamiso qaybtooda siyaasadda iyo mustaqbalkooda iyo guddida iyo guddoomiyahooda akoonna way leeyihiin marka si publicly akoonka dadweynaha loogu geliyo website kasoo akoon ku galayso marka qofkii bixiyey iyaad bixisay iyo dalalku competition say ugu galaan ayaanu markaa dhalinyar ahaan usoo jeedinaynaa oo group ahaan uga shaqaynayna guddidana waa loo geynaya insha allahu tacala lakin akoonkii waa laydin haya waxaa la yidhaha akoonka horumarinta mashaariicda deegaanada beeshu ay iska leedahay hadday noqoto abaaro hadday noqoto shirar hadday noqoto waxa weeye tala guda reerku ku qabsanayaan waa in waxa weeye la horumariyo deegaanada beeshu ay kasoo jeedo marka lacagta cayimanaya laydiin soo sheego ayaa akoonka ay guddidu hayso ku shubaysaan dhalinyaraan u samaynaynaa dalka joogta iyaguna update garaynaya dadka bixiyey marka waxaad tegaysaa websiteka wuxuu kuu sheegayaa www.garxajis.com mid bay gudoo libaan maxaad garxajis uga dhigaysaa waaba war caday inaad ka dhigto www.garxajis.com sideed uga dhigaysaa miyaanay qabiilka reerahayn iyo war cad waxaan ma maqashay meel reer layla ogaadeen suyidhi haa ma maqashay ogaadeen iyo haa weligaa ma gashay www.ogaadeen.com suyidhi waan gala saana waa inaad maxaad ugu diiday hadduu ogaadeen dayaxa sare tegay maaligoo garxajisa ogaadeen weligayabada waan u wada soconay ogaadeen hadduu dhoominka iyo dayaxa sare tegay maxaad aniga reerkayga ugu diidaysa waan kugu raacay buu yidhi waxaad ka dhigaysaan www.garxajis.com caddaankan wada loolalaamadaba siinayno ceelka sare iyo dhoominka reerka la gelinaya dhul damba la fadhiisin marka jaalayaal joogsada oo waxa weeye taasi waa idin anfacaysaa dhammaantiinba tusaale ahaan haddaad joogto dalka gadar waxaad tegaysaa gadar sanadka 2019 dhammaan deeq-bixiyaashaanu gelinaynaa lacagtaad bixiseen lama soo gelinayo calculationka lama soo gelinayo laakiin magacyadaanu soo gelinayna haddaad iska weydo qaadhaanka allow dalkaa kaa reebi liistadaa qofka ka hadha waa qof reerka ka hadha dama maqlaysa rasiirkaaga aad ku dirto xawaalada ayaad u gudbinaysaa xafiiska hargeysa dhalinyarada looga furo xafiiskay gelinayaan akoonka waxay iskale guddida marka dhammaantiin 12 bilood buu qof kastaaba haystaa inuu diro lacagta marka magacaaha ka hadhin 2019 ka hadhin 2020 ka hadhin 2021 ka hadhin 2023 ka hadhin dir marka anagu ma lihin maamulka lacagta dhalinyaradan aan dirayo mana yeelanayno waxa meesha lagu bixinayo mana yeelanayno soo ururinteeda diritaankiinu waa idinka rasiidka inaad adigu dirto oo magaca liistada aad ku jirto waa adiga mas'uuliyadda koowaad leh dhalinyaro halkaasaan waxa weeye dalka joogtaan 80 intaan isku ururino dalka magaalada hargeysa ku waatara ayay iyagu up to date gelinayaan marka adigu dhalinyarada u dir inaad dirtay rasiidkaagii geli magacaagay soo gelinayaan gadar waxaad tegaysaa dalka gadar la yidhaahdo liistadaada iska baan UK way ballaaranta marka UK iyo gadar ka badan Australia iyo New Zealand ka badan Canada iyo Maraykan ka badan dadka magacooda ku qoranina kuwa aan magacooda meesha lagu soo qorina waa weeyaan waa challenge halkay ka baxdaa waa bakayla qaleed marka lacagtaas guddida ayaa insha Allah tacaala kala saaraysa waxaan talaahaan anigu waan jecelahay in laga dhigo qayb guddida siyaasadda qayb deegaanka horumarinta qaybna service shirarka mashaariicda odayaasha iyo de waxaan dawladdu ay taqaaneen loo yaqaano xaajaada dhulbahanta marka la isku dirayo ay dawladdu qarashaad bay bixisaa garxajis markay isku dirayso qarashaad bay bixisaa waxaa la yidhahdaa mashaariicda xaajo fulinta miisaaniyadda qarankay ku jirtaa marka mashaariicda xaajo fulinta xabadii naga kululaata ee gaadhigeedu shidaalka kululaado ee meelaha ka soo qaylqaylisa in lagu qaboojiyo ilaa gaadhigu hadduu kululaado jinka isduqeeya ilaa shidaal loo bartay marka kuwan imikaba meelaha fadhiya in iyaga laftooda lagu soo qaboojiyo qaybtaan gooni loogu saaro qaybta kale abaaro markay dhacaan iyo deeqaha reeraha kale loo geysanayo dalweytana markay hartigu isteena dagaalada meesha ka dhacay gawaadhi raashina geysay marka taasoo kalena dee in la yidhahdo mashruuca horumarinta iyo deeq bixinta reerku beelna loo ballaarino iyaduba dawladda haddaan deeq bixinayn miyaalay dagaal sokeeye ahay daamiyo kale hadduu daad ku qaato waa inay beeshu iyada lafteeduna balliga ka xaadhi karto marka beesha inay iyada lafteedu dawlad noqotaan la doonay marka waxa weeye haddaad magaca beesha sidato akoonka qurba joogta qofya $100 ku shubo $50 baan idinku dhaw waxaan tiri bareerka $50 markay la wada yaabtaan way soo qaraceen maxaa loogu leedahay $50 waxa hadday sanadka $100 baan dirayna diraan. qurba joogta 12 bilood min $100
أيار دول بنا الاستدي ده اللي قريب هذا عادي ما مغلسة وحنا كهذا يسالنا عيب معها ومشاريع ده هرمارين تريركا خير بوحو كهيبت براني هاي مالكو يسكو حري هاي ومشاريع ده فلولي لعقد كالكوليشن كده يا موله هيدا إذا كيد ما خصيصة كنت بقى الله ترى صار أنا قاعد ما خصيص هذا عادي ما مغلسة أنت لو قدام بين أنا ما خصيص هذا لو حكوا خصيصة أنا بقولك $1 درت لبية طبعا كبيرات وقرب جوكتو جودها أنا وحقبنا يا شرعي هاي باش وصار صار بعد هذا نقطة لكن مركز إنجليز لا يراهدو أو أنكو قريو كاريكو ليبان magacaygu markuu ku jiro aan 12 bilood $100 iska bixiyo mar hoy magacaagu ku xigo waa kugu ceeb safarta loogu fiiqaya hadda taageer xajis waxaan ku oranaynaa ku qarin maynaa war maada bixiyo magacaagu Ingiriiska kuma jirin website-ka guud markaad galaysaa far number baa lagu galaya xajis la galaya waa code xafiiska hargeysa ku siinay waad galaysaa iska bar baa lagu leeyahay UK tag mar heer gadar baatay gadar tag mar heer Jarmal baatay Jarmal tag mar heer Sweden baatay Sweden tago iska eeg هذا وحنا ولا إن يصير دتك وناك وقطر تمام والضلبة دلو ترتمو أنت دلو إذا شوكت أنا دحدو بكتر تنتو مركب بيش واحد سوى كذا يصير على 10 بحياة داق بلارن نوريسا مركب ولذلك قرحت السينما ده أفكر معها وشيبكا وقعنتها وقريكا وتقالكا ومكتا ومن نمرة ورير كود يسكو هايسو أنت على قيبة كجيستين عاد يسكو هايسو آخرها ترباك وجوله إفكار ترباك وجوله dalka wanaag baa ugu jira hadii beel 6 gobol degta ay barwaaqowdo oo ay midaysan tahay umada la degtaana taa wanaag bay keenaysaa haday beeshaas kululaatana dalku waa kululaanaya sidii 94 lidalik markaan beesha qawajiya lagu daaro waa khariirada gaaska Afrika ay saameynaysaa isbedelka garxad isbaa marka waxa weeye walaalayaal taladu waa laga maarmaan beesha qofkii talaw hayo wuxuu qaban karaa kii wada dhisay kii caafimaad dhisay kii mashruuc keenay kii hay'ad keenay أنت هو اللي تقول لي ريدي قدنا هو طرف فريسان نعلم في طرف فريسان وحي وناكسن ترى أذكرها عن ذلك كقبته قلت ده وش يا حسن قبل ما ينادها ولا ما أدري هذا ما غلط هل هي تسأله ده بعنتي ناضي البلد نشوفه حتى السياسة الإسلامية كبير باك فريسو يقول ده. But there's also a very other simple but important shot here, and that's this 50-50. It's a good confrontation. يقول ده السياسة دي كوحتيس يانا مريض كوح حتى دونيسو إن عقل السلطان يشوكوين كي حق يحرشة بدونيسو وين أكتر غير فريق فريسو